قبيل باكرجي كي كساري لا وكن نبطري وكن مسكو كان وكن قبيل باكرجي كي كساري لا وكن نبطري وكن مسكو كان وكن وين كسر دو تلفزيون كعالمي كابا تي في وأنا تكون mahadsan tahay waraysigan khaaska ah ee nasiisay waana kaaga mahad celinayna madaxweyne marka ku soo dhaw Kaaba TV waad mahadsan tahay Xamsi aad iyo aad baan ugu dhawahay Kaaba TV sharaf baan ay tahay maanta inaan kala soo qayb galo barnaamijkan oo halkan adigu macsuunto aad iyo aadna wada mahadsan tahay hadii aan su'aashayda koobaad ku guda galo waxaad sheegtay xilligii ololaha adiga iyo xukuumaddaadu inaad badda ka dhigi doontaan malab marka su'aasha iyo ballanqaadka maxaa idinka qabsoomay ilaa hadda horta Xamsi aad iyo aad baad u mahadsan tahay su'aashana aad baan u jeclahay inaad weydiiso waana ku faraxsanahay farxad bay maanta tahay su'aashana aad weydiiso oo dad badan soo weydiiyeen horta waa run oo badan malab ka dhiganaa kaambeeyinkayaga way ku jirtay ballanqaadkayaga way ku jirtay buugga xisbigana way ku jirtay aan soo saarnay wax qabadka horta hawsha waanu galay si weyn baan uga hawl galay badda berbereen malab ka dhigno reer berberiyo makhraatiga way noo kaceen oo way ogaayeen laba markabo sonkoraan badda keenay waanu ku darnay badda ilaa imika waa dhanaan laakiin insha Allah imika laba markabo kale ayaan Taiwan nooga soo socdo sonkora markaan labada ku darno ayaanu jeclaanana ayaan sugaynaa oo rajaynana si weyn ugu rajaynaa baddu macaan noqoto malab noqoto aad iyo aad ugu mahadsantahay madaxweyne waxa ballan qaadeen sidoo kale inaa madaxtooyada ka dhigi doontaan diyaarad wadanka dhakadiisa taagan oo laga soo maamuli doono wadanka xagga sare su'aashaas oo in badan dadku is weydiinayaan sideed ku suurtoobaysaa taasina horta aad iyo aad baad ugu mahadsantahay su'aasha waan jeclahay inaad weydiiso waan ku faraxsanahay horta aad way jirtay inaan dalka dushiisa diyaarad ku maamuli doono oo madaxtooyada diyaarad noqon doonto kaambeeynkayga way ku jirtay ballanqaadkayga way kamid ahayd laakiin diyaaradda anagu waxaan ku wadnay diyaaraddan taalla shacabka khayriyada saaran diyaaraddaas aan islahayn kiciya oo dabeetana halka dalka dushiisa hargeysa taalla ee weyn weeyaha marka waxaan islahayn saara magaalada dusheeda wixii yara ka dhimanna galiya markii aan xulkii kornay guddi baan u saaray farsamo markiiba waxaan ku diyaaradda wixii ka dhimanay galino xagga sare saarno nasiib darro warkii markii lagu soo celiyay diyaaraddii waxay noqotay karatoon iyo bireel isu geeyo diyaarad macquul ah inaan ahayn wax ka soconaya inaan ahayn marka taas hawshaas adeernoomay qabsoowin hawsha insha Allah laakiin bal imkaan wax kale aan ku dadka ugu bedelo bulshada ayaan rajaynaynaa mudane madaxweyne sidoo kale xukuumaddaada aad waxa lagu dhaleelaa caburinta saxaafadda sidoo kale waxaad adigu sheegtay ballan qaaday inaad sameynayso robidyo cadaaladda ka shaqeeyo qabyaaladda ka fog walow China iyo xagga lagu ogaa filin kartoonada iyo robidyada warka keena taasina sidee bay u noqonaysaa wax macquul ah oo shaqeynaysa horta aad ku mahadsan tahay aad baad mahadsan tahay su'aashaad weydiisay horta anagu saxaafadan caburinaa ma jirto laakiin saxaafaddu waxay ka xanaaqeen kaambeeynkayagii bay ku jirtay iyo ballanqaadkii inay saxaafadda la wareegi doonaan robidyo laba robidna ilaahay amarkii waanu soo iibsanay waanu ku guulaysanay hawsha labadii robida ugu horeeyay xarunta warfaafinta iyo wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo wacyigelinta yaalaan markii aan dalka keenay robidyadani af China ku hadlayay af Soomaaliga ma yaqoon marka ninkii af Soomaaliga barayay ayaan uga shakinay inuu qabyaalad baro marka imka mid doon ka shakisanno xarunta si ay dhidaan u gudbinay marka kaana baaritaan baa ku socda insha Allah marka wiiga dambe in hawshoodii iyo xilkoodii la wareegaan hadii dambe lagu helana ay maxkamadda la horgeeyo robidka ma laga yaabaa madaxweyne in robidyadana la eedeeyo sidii wariyaashii oo kale oo la xilxiray iyagana waa la xiri karaa wax kasta oo sharciga dalka iyo qaanuunka ku xadgudba waa la xirayaa ama kartoon ha ahaado ama qof ha ahaado keende bahalkana waa bahal ajaanib oo la soo iibsaday marka waa la xirayaa wixii ku xadgudba sharcigana waa la horgeeyay daawadayaal inta waxaynu ugu eeg waraysigii koobnaa aanu idinka qaadinay madaxweyne sidoo doonaba yeele oo fursad qaaliya inoo siiyay inaan waraysi idinka qaadno waa bahda Kaaba TV oo isku duuban oo dhammaanteen idin leh amaana hankii qaranka hankii qaranka rumoobay higsiga
himilada dalkeena dalkeena hiigsiga himilada dalkeena